wiigan waxa wadankeena timi oo soo booqatay gabadh Norwegian oo ergey khaas oo maxaan ku raahdaa ergey khaaska ah Norway Soomaaliya gabadhaasi waxa ay ka tirsan tahay qaybta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee maxaan ku raahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway title-ka in la sheega ceeb maaha dambina maaha waa run iyo xaqiiqa ay tahay in la noolaano guul darooyinkeena siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorshe la'aanta ah ee indha la'aanta ah ee ay suurtagal tahay 6 bilood in wasaaradda arrimaha dibaddu ay bilaa wasiir ahayd qorshayaasha sidaas ee qarankan dhabarjabka ku kuma qarin karno in aynu maxaan ku raahdaa title beena aynu inagu u sameeyno dadkayno imanaya oo aynu raahno waxa weeyaan ergeyga gaarka ee Soomaaliya iyo Somaliland maaha waa ergeyga gaarka ee Soomaaliya run weeye waan ku celinayaa waa ergeyga gaarka ee Soomaaliya runtu taa weeye waa inaynu aqbalo waa inaynu raahno sidee baynu u helaa ergeyga gaarka ee Somaliland hadda tahay wasiir qarankan wasiiru aad fahamsantood garanaysa macnaha inaad qaran dhan iyo ummadan aad wasiir aad u noqoto macluumaadka aad dadka u sheegayso runnimadiisa iyo xaqiiqanimadiisa inaad hubisaa waa waajib ku saaran waxyaabaha wasiirku yimid ee yiri aadka loogu qoslo waxa kamid wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cirro weligii hadda waa weligii muu tagin xaflad 18 May marumba mise waa been anigu waa been oran maayo wasiirka been baad sheegaysaa oran maayo laakiin tiisa waan ka xishoonaynaa araga idhaahdo laakiin tiisa warkaasi xaqiiqo maaha mana jiro waana wax cid waliba ay hubin karto waxaan isweydiiyay wasiirku markuu warqada qorayay qof baa soo garaacay oo soo daabacay qof baa la akhriyay wasaaradda maaliyad baa gasho intaas oo qof baa ka tirsan qof saxa wasiirka ku raahdo wasiir warkani dhab ma aha senteniskan ka reeb wasaaradda miya laga waayay mise waxa abuurmay dhaqanka aynu ognahay maanta dawladda Muuse ka dhex jira ee aanu qofna qof runta u sheegi karin ee aanu qofna qof ku oran karin waad qaldan tahay sida aanu wasiirku madaxweynaha ugu oran karin madaxweyne waxaas waa qalad ka daa ayaa abuurantay miya wasiirkana inta la shaqeysay ee ka hooseysa inaanay oran karin wasiir arintaas waa qalad oo ma jirto ee ka daa waana inagu soo noqonaysaa oo ceebteedu inaga ayay inagu soo noqonaysaa waxaan doonayaa wasiirka inaan u sheego Cabdiraxmaan waxa uu matalaa wax ka badan 140% shacbiga reer Somaliland waa nin reer Somaliland muwaadina wadankan inuu madaxweynenimo ka doonaya insha Allah next year wadankan madaxweyne ka noqon doona waa nin 12 sano wakiilada soo hogaaminayay marka wasiir loo yahay amaba cid kale oo loo yahay inay gunno iyo xil Somalilandnimadoodu ay ku fadhido oo maalinta gunnada iyo xilkaasi ay goodo ay oranayaan markii horeba kuma aanan qanacsanayn inay Cabdiraxmaan yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaan isleeyahay qarankana way caayaan iyaguna waxa weeyaan dalow ayay iska tuurayaan madaxweyne maanta mar kale waxaynu soconaa doorasho 2022 hadii Ilaahay raahdo insha Allah ma waxa aad doonaysaa inaad doorashada ku gasho dhiriqdii iyo kala qaybintii iyo dagaalkii aad 2017 ku gashay way hadalka wasiirku yiri ma aragno hadal la iska yiri waxaan u aragnaa bilowgii qorshaha campaign-ka 2022 iyo dhaqankii dawladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay